naagaha adduunka dhan waxay u qaybsamaan laba qaybood ajnabi iyo anaga naagaha ajnabiga markay walacayaan waxay ku walacaan KFC chicken chips ice cream cabitaano waxyaalo macmacaan oo nafta u roon iyo xaajigooda ay aad u jeclaanayaan more romantic ku noqonayaan maanta dhan inuu ka fogaado xataa ma ogolaanayaan saas inay ugu dhiganaadaan iska jecel yihiin anagana naagaha Soomaalida waxay ku walacaan mataqaaneen dalac bilaash basbaas laga buuxiyay dhuxul dhagax caradhoobey ama carada caadiga guduuda burciidka bacaadka muufa gubad bariis gubtay soor gubtay cambuulo gubtay shaah gubtay cambo gubtay oo leelefo loogu magac daray bajiye oo asalkiisa digir la duba ah gubtay waa wada dad olol oo gubtay ayaga dhan maalinkii walacdan gurigeed way ka soo cararaysaa abay ninka waana cali ma ogtahay qaati aan ninka kala taagana walaa waa ku walac ninkaas shirkiisa ay dhawaa guriga duu soo gal waa uga soo baxa aniga habeen imaan ninka maribaan waa ku walac caliga fur ninka madaxiga liga qaada aniga dad caloosh ku soo gubtay naagaha Soomaaliyeed waxay u qaybsamaan saddex qaybood mid waa ninkeeda uroon ninkeeda ma ahan indhi dhiga kala malaha midaas haday nin hesho cideeda ay ka dhalata ma taqaanaba shaarka suuq soo arta la xaajiyo ku fiicana kabta soo arta la xaajiyo ku fiicana la xaajiyo waa iga caatowda hadda waa nin caloosh halkaas mareys tan labaad waa cideeda uroon cideeda ma ahan nin iyo waxaas afaaraas ma gashay ayada maanta waxay ku haysaa la xaajiyo hooyaday baa xanuunsanaa bayba oo mulaayadii baa loo ka jabtaa loo xaajiyo lacag inuu dhintay inuu nool yahay iyo inuu qadawar boo ma haystaas tan saddexaad waa iskuroon maanta la waa caatobay wajiga la fuuy noqday waa madoobaade geeyga waa faaruq daameysti as maxaa cunaa maxaa cabaa maxaa xirtaa maxaa marsaaya lahaan nin iyo cid waxba ugu ma taalo mid afaraad jirto oo idinka qariya wacan al dhahay wadaroon aniga waa cid kale ma